deeqdan oo ka koobnayd bur, bariis, saliid, galey iyo hilib isla markaana la gaarsiiyay dad danyar ah oo ku nool degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa iska soo aruuriyay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Jarmalka oo ay hogaamiso Xaawo Maxamed Cusmaan iyo hay'adda Ansar International waxaana bixinteeda raashinkan loo wakiishay mu'asasada Anwar Muslim United School. dadka deeqdan la gaarsiiyay oo u badnaa haween danyar ah ayaa ugu mahadceliyay dadka walaalahooda ah ee soo gaarsiiyay deeqdan. aniga Madiina macaani dheeraan ahay alxamdulillah ilaaha mahadallah way afirsan khair jaran ka filiheen alla anisiyo cumri dheer ciwaad leh caafimaad gasho gasho ilaahay anisiyo ducaanay hayna annaka waayirnahay ani taayayna ilaahay anaga aqbal anaga ajiibo anigo aamin shi Umar Qaasim waxaan u mahad celiyeynaa intii deeqdan loo soo dhiibtay ilaahay inuu iyo kana khayr ilaahay siiyo aan ku rajeeynaa aqri adduunka ilaahay oo shafaaco aan furkaayna waa nasiiyaan galey bur bariid sariir ajaradayna aan ku dudubanayna siiyo man alla in magrasuul muraadkooda alla u sahlo waxaan ka mahad celinaynaa hay'adan waxaana soo gaarsiisay Ansar oo ah bur iyo bariis saliid sonkor iyo hilib iyo galey kawar sidee ugu baahanadeen in deeqdan la gaarsiiyo aad iyo aad ayaan ugu baahanay in la soo gaarsiiyo hay'adan soo gaarsiisay maanta guulaha bariis iyo sonkor iyo bur galey iyo hilib aan loo siiyay sangaaj sagan dadka walaalihiina ah ee go'aansaday in dad walaalahood oo Soomaaliya ku nool inay afuriyaan sidee ugu mahad celinaysaa bal dareenkiina ka waran khayra oo mahadcelina khayra oo rajeen ajiyada aniga xisaab tusame halkan sharafta la dadkina soo gaarsiiyay hay'adina soo gaarsiiyay iyo wadamada muslimiinta oo deeqdan bixiyay hay'adda Ansar ilaaha ma hadda iskala waa u mahad celinayna anaga u baahneen waqtiga xaadirka in la soo gaarsiiyo oo ciid fitriga foodan uu soo hayso maxaa deeqdan siiman deeqdan waxay ka kooban tahay sokor saliid bur iyo galey iyo hilib sidee ugu baahneen marka dareenka alxamdulillah ilaaha ma hadda iskala waa u baahneen in la soo gaarsiiyo madaha walaalahayna oo islaamka oo muslimiinta mu'asasada Anwar Muslim United School oo ah meel wax lagu baro caruurta agoonta iyo kuwa danta yar ayaa hore deeqo kala duwan u gaarsiisay dad danyar ah iyo caruur agooman ah kuwaas oo ay u soo dhiibeen lacag kala duwan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool wadamada caalamka. Aweys Maxamuud Jilcow, Royal TV, Muqdisho.